dardaarmaysaa. mas'alada tan waxaynu ka fahmaynaa isagoo salmaan diintii fahmay oo ku dhaqmay ayaa haddana qofku wuxuu u baahan yahay xaqa ciduu la gargaarsado. kelidu ma qurux badna. wuxuu raadinayaa cid markuu caajiso iyadu dhiiran oo xaqa u sheegta, markuu daciifo isagu xaqa u sheega. cid ay diinta isu gargaarsadaan buu raadinayaa. saaxiibku waa wax weyn iyo jamaacada iyo bulshadu, keliduna waa wax dhib badan. walidalik salmaan isagoo xaqii fahmo ninkan aada u jeclaado oo diintii ka gartay ayuu haddana wuxuu ku leeyahay ninkii, adiga waa kana waad sii socotaa laakiin weli saaxiib baan u baahnay ee yaad igula dardaarmaysaa, maxaad se ii dardaarmaysaa, maxaad ifaraysaa? ninkii wuxuu ku yidhi anigu maanta garan maayo mabda-an aan haysto cid haysato dunida korkiisa joogta garan maayo. dadkii way dhinteen buu yidhi xaqa ku sugnaa waa madheen, waxaana soo hadhay dad diintii bedelay oo ka tegey. nin uun baan iminka sii garanayaa buu leeyahy raggan xaqa ku tuhmayey. ninkaas wuxuu joogaa buu yihi mawsil. mawsaltu waa magaaladana taqaaniina ciraaq ah. shaamna markan wuu joogaa. nin mawsil jooga un baan garanayaa buu yihi ragga aan isleeyahay xaq baa kusii hadhay, raggii kale madhe eh kaas baan garanayaa buu yihi. salmaan alfarasi awalba xaq buu u socday. meesha waxaa ka muuqata inta badan ahlu xaqu inay dad yar yihiin, dadka inta badanina inay iska lunsan yihiin. salmaan awalba beershiya wuxuu lugta uga soo bilaabay inuu xaq raadiyo. maanta oo loo sheegay saaxib kaleo ay diinta isku gargaarsanayaanna wuu raadinayaa. salmaan shaam buu ka tegey, mawsil buu tegey. markuu ninkii u tegeyna wuxuu ku yidhi ninkii kale waa dhintay saaxiibkii ahaa, markii la aasay buu iskaga tegey, shaam buu qabtay. shaam ninkii ugu tegey wuxuu ku yidhi warniyahow waxaa ii kaa soo dardaarmay sheekhaasi hebel la odhan jiray caynkaa iyo caynka ahaayo aan la joogay. markii uu geeriyoonayaan ku yihi ii dardaarno adaa lay kaa soo dardaarmay. ninkii wuxuu ku yidhi bes haddii hebel kulu soo dardaarmay kaalay ila joog, aniga ila joog. ninkii saddexaad weeyaan, kana waan la joogay buu yidhi. fawajadtuhu khayra rajuli calaa amri saaxibi. nin wanaagsan oo halkii saaxiibkii maray isna maraya buu ahaa buu leeyahy. waa rixlaad ayuu ku jiraa xaq lagu raadinayo, rixlo ka gedisan kuwa maanta inta badan dunida la galo. ninkii muddo markuu joogay ayay isagana nin kaloo da-un buu iska ahaayee tiisii soo ururtay. salmaan haddana kelinimadii baa dhibtay. mar kaluu su-aashii bilaabay uu leeyahay warniyow adigana waan ku arkaa geeridii waa kugu soo socotaa, arrinkaygana waad ogay, sidaan kuugu imina waa kuu muuqatay, dee yaad kale maanta ii dardaarmaysa, yaad adna ay bunay wallaahi maa aclamu rajula calىa mihli ma kuna calayhi ilaa rajula binasiibiin. ninkiina wuxuu ku yidhi maanta anugu garan maayo cid haysata wixii anagu aanu haysanay ilaa iyo nin jooga magaalo kale oo iyana nasiibiin la yidhaahdo mooyaane. ninkaa raadcayso oo qabo. salmaan weli baadi goob xaqeed buu ku jiraa, safarkiisu haddana xidhxidhay. 3 nin baa geeriyooday, kii afraad buu u socdaa. salmaan wuxuu tegey nasiibiin. markii saaxiibkii la aasay ee uu geeriyooday ayuu nasiibiin qabtay. nin baanu imi buu yidhi isna raggii xaqa ka mid ah oo isna raggii xaqa rumaysnaa ee haystay ka mid ah. ila joog buu isna yidhi. ninkii nasiibiin buu isna muddo la joogay. waxaan helay buu yihi nin saaxiibadii wixii ay ku sugnaayeen isna ku sugan. isna markaan muddo la joogay buu yihi baa geeridii ku soo ururtay. markaasaan ku yihi buu yihi hebelow
waad ogeydo hebel baa hebel ii dardaarmay, hebel kalena hebel buu ii dardaarmay, hebel kalena Mosul baa laysoo dardaarmay, kadibna adaa laysoo dardaarmay, waa ninkii afraad. bal yaad adna ii dardaarmaysa, yaad adna ii dardaarmaysa. wuxuu uhi wallaahi ma naclamu axada baqiya calىa amrina aamuruka an taأtiyahu ilaa rajula bicamuriya. meesha camuuriya la yidhahdo, camuuriyadii caanka ahayd ee khilaafata haaruun الrashiid dhulkii la furanayay ahayd. camuuriye mooyaane meel kale cid kale oo aan kuu tilmaamo garan maayo. magaalada camuuriya la yidhaahdo beledkaasaa ninku ogaa xaq haysta. dee haddii aad jeceshahay ninkaa aad buu ku yidhi. saaxiibkiisanina waa geeriyooday, dabeetana waa ka safray. waa safarkii imisaad markaa? waa kii shanaad. yani sham buu bershiu ka yimi oo sham buu yimi. ninkii hore ula joogay wuu dhintay, kii labaad ee ula joogaa dhintay. wuu ka safro ciraaq buu qabto Mosul buu tegey, kii uu la joogay baa dhintay. wuu ka safro nasiibiin buu tegey, waa sham iyabaa udhexaysaa Mosul dhexdeeda. nasiibiin ninkii joogaa dhintay. wuu ka tago camuuriyuu qabtay. camuuriye ninkii joogay ayuu yimi oo wuxuu leeyay ninkii baa soo dhoweeyey, isna xaquu tilmaamay, waa la joogay. muddo markuu la joogay ayaa wuxuu yidhi waxaan ku hamiyey bal waxoogaana xoolana inaan dhaqdo. waxaan dhaqday buu yidhi markaasi in lo ah iyo hunayma, neef yaro adhiya ama adhi yar, baqaraat iyo hunayma ayaan dhaqday buu leeyahy. intii isagoo dhaqday lana jooga sheekhaasi jooga camuuriya ayaa isagana geeridii ku timi buu yidhi. markaasaan idhi buu yihi bal adna dardaaran, yaad i faraysaa xaggaanse u kaca. wuxuu igu yidhi buu yidhi niyow aniga waa soo ururtay, cid aan kuu tilmaamo mabda-i aanu haysanay diintii masiixiga ahayd ama kristanka ahayd oo aan la bedelina rasmigiiya, cid aan kuu tilmaamo haysata ma haya buu yidhi. waa wakti ay faaftay yani diinta masiixiyadda bedelkeedii waxaa ka qeyb qaatay boqorkii Qusطantiin lo odhan jiray iyo shirkii Niqiya lo odhan jiray. shirar baa lagu bedelay, boqor aan isagu diinba haysan baa nimankan isugu yeedhay. dabeetana 2,000 oo qof dad ku dhadhow baa isu yimi. 2,000 oo qof 371 kooxa baa dhan isu raacday. kooxdaasuu taageeray. waa kooxdii lahayd ciise inay ilaah weeyaan iyo waa dabeeca ilaahiya iyo dabeeco kale buu wada leeyahay. kooxdaasuu taageeray. kooxihii kale waxaa lagu soo rogay dowladdii romanisku markaasi in kanaa'istooda lala wareego, kutubtooda la gubo, wax walba la cadaadiyo, hardaqa lagu xukumo, zanaadiqa lagu xukumo. kooxdan yaree dowladda raacsisan iyo madhabkeedii baa faafay. idan meelahaasi romanisku ka yaro foguun midhadh ku libdhay oo wadaadaa mooyaane cumuuman diintii dowladdaa dunida haysata marka kan. marka ninba nin buu u tilmaamaya, uu leeya uu ninkaasba in yar u qarsoon tahay oo aan filaya raggii ragga hore ka soo hadhay inuu yahay. akhiiran ninkan markii uu yimi, ninkani wuxuu leeyahay anigu cid kaloo aan kuu tilmaamo garan maayo, laakiin dardaaran kale ayaan ku siinaya. niyo waxaa soo galay wakti nebi uu soo bixi doona baa soo dhowaaday. nebigaas oo diintii nebi ibraahim dadka ku soo celin doona, dhulka carbeedna ka soo bixi doona, una soo hijroon doona meel dhul bayna xaratayna, dhul labadiisa dhinac ay xara tahay. xarada waxaa la yidhaahdaa dhulkan fulkaanuu markuu ka qarxo buuraha sisibka noqda. madiinana waxaa la yaqaanaa labadeeda dhinacba in valkanayaal ka qarxeen, dabeetana ay sisib tahay. ninkaasi nebigaa soo bixi doonaa buu yihi wuxuu usoo hijroon doonaa dhul bayna xaratayn leh, geedka timirta la yidhaahdana uu aada ugu badan yahay. nebigaasi wuxuu leeyahay buu yidhi calaamado aan kaa qarsoomi doonin. calaamadihiisaasi waxaa ka mida buu yidhi hadiyadda wuu qaataa ama se wuu cunaa, sadaqada se ma cuno. hadiyadda wuu cunaa, sadaqada se ma cuno. labadiisa garab dhexdoodana
khaatamu nubuwa shaabadii nebinimada ayaa labadiisa garab dhexdoodana ku taalla. haddii aada awoodi karto dhulkaa qabo oo dee rajada ay nebigaasi soo bixi doona ku noolow buu leeyay. anuu cid kaloo aan kuu tilmaamo ma hayo. salmaan alfarisi albaabkii culammadii kristanka ee uu dhex marmarayay waa ka soo oodanta, welina xaq buu raadinayaa. xaqa cimrigiisii qeyb buu ku soo qaatay, intaas oo dhul ana wuu maray isagoo xaq raadinaya. haatanna xaqii buu ku talagalay inuu natiijadiisa weli sii raadiyo. waxaan go-aansaday buu yihi markaasi inaan safro oo dhulkaa la tilmaamaya aanu safro. ninkii camuuriya ay wada joogeen markii uu geeriyooday ee la aasay ayaan dhulkii camuuriya waxaan sii joogay buu yihi in muddo ah. kadib ayaa safar yimi, qabiilada kalb la yidhaahdo ee carbeed niman tujaaro ka tirsan baa yimi. nimankii carbeed baa waxaan ku yidhi buu yihi waryaareen haddaan xoola idin siiyo may qaadaysaan oo dhulka carbeed may geynaysaan? haa baa la yidhi. lo-daa iyo adhigaasaan haystaa buu yihi qaata, idinku qaata lood iyo adhiganba. bilaad ilcarab dhulka caynkaa iyo caynkaa u eg igeeye. waa ka aqbaleen. waxaynu joognaa mar kale oo salmaan safar u xidhxidhanayo. safarkan wuxuu hanti lahaaba wuu ku bixinayaa. inagu safaro badan baynu usoo xidhxidhanay, laga yaabo waxaynu hanti lahaynba inaynu ku soo bixinay iyo wax loo amaahdayba. laakiin safaradaasoo dhame waxay ku salaysnaayeen xoog sitag iyo beris raadin. salmaan laakiin weli safarkiisu wuxuu ku salaysay inuu xaq raadiyo, naftiisana uu badbaadiyo. waxa uu markan taagan yahay wixii uu xoolo haystay ee yaraaye uu haystay oo dhan inuu qadimo liajli meel uu rajaynayo in nebi ka soo bixi doono inuu u dhowaado tago. saas buu nimankan xoolihiisii ku siiyey. dabeetana way soo kaxeeyeen. 5 ninoo horena wuu soo maray. marka nimankii carbeed way khiyaameeyeen, qolo qowlaysataa bay ahaayeen. dhexda markay marayeen ayuunbaa inta xadhigga la isugu jiiday ayaa la yidhi waa addoon yar aanu ka soo iibsanay camuuriya, yaa naga iibsanaya. salmaan oo xaqii raadinaya ayaa isagoo addoonnimo loo iibiyey. nin yahuudiya bay ka iibiyeen oo ay addoonnimo uga iibiyeen. idan isagoo wuxuu hanti haystay bixiyey oo weli xaq raadinaya ayuu haddana dhibtan la kulmay cusub ee ah inuu addoonnimo ku dhaco. oo ninkii xorta ahaa ee reer waxhaystee ladan ka dhashay ee xaq uu raadinaya u safray maanta wuxuu taagayaa addoon. waxaa laga yaabaa soomaalida iyo dadka maanta jooga markay addoonka maqlaan inay ka fekeraan nin madow. war addoonku nin madow ma ahaan jirin. addoonku ninkii laga xoog badan yuunbuu ahaan jiray. dunidii hore marka la isku duulo cid la qabsado ciddaa xoolahood iyo dumarkana waa la kaxaysan jiruun, raggana addoonnimun baa loo iibin jiray. ama white man ahaw ama bersian ahaw ama african ahaw ama waxa doonta ahaw, haddii lagu qabto waa lagu iibinaya una waa lagaa xoog batay. salmaan nin madow maaha ina nin bershiyaana buu ahaa. suhayb arumi saxaabigii la odhan jiray nin romanaba. laakiin baabkaa laysuma eegaynin cidaad ka dhalatay iyo ma cadaan baat iyo ma madow baat iyo warkaasi ma jiro. haddii lagaa xoog batay waa lagu iibinayay. salmaan alfarisi waa la qabtay, xoolihiina waa laga qaaday. dhulkii carbeed markii la yimi iyo yahuudiya meelihii ay deganaayeen waa la iibiyey. nin yahuudiya baa laga iibiyey. ninkii yahuudiga layga iibiyey buu leeyay waxaan arkay inuu horta dhul timir iyo waxla baan imi, raja ay gashay buu leeyahay ah inaan soo dhadhowaaday. geed timireedkani waa geed cajiiba. sheekh nablsi baa wuxuu tilmaamayaa timirta hadda madiine ku taallaa buu yihi waxaan rajaynaya inay tahay un tii nebi maxamed markuu noolaa ku taallay, waxba iska bedelin buu leeyahy. waayo timirtu waxay ka mid tahay dhirta cimriga dheer leh. ilaa 6,000 sannadood bay jirtaa bay ragga bar sheegayaan. yani 10,000 sannadood bay jiri kartaa lacalla. inkastoo iminka laga yaabo in cimaaradaba lagu bedelay iyo daare iyo wax, laakiin haddana waxaa sii hadhay un inay yihiin baa suurtagal ah tii waagaasii ku taallay un. yani waa timirtu waa geed aada u cimri dheer oo aan isbedelin.
ninkii yahuudigaa markii layga iibiyey ee aan timir iyo wax arkay